fooda ayay isdareen labada raabar ee kala ah Lil Balil iyo GC Boy kadib markii weerar xagga raabka ay isweedaarsadeen ayay hawada isku mariyeen gantaalo raab ah oo ay la fajaceen bulshada indha-indhaysa baraha bulshada haddaba daawada haddaad jeceshahay inaad la socoto warbixin soo koobaysa xog xasaasi ah oo aadan la socon oo ka dhaxaysa GC Boy iyo Lil Balil muuqaalka laagsaar una sheer garay saaxiibadaada ku mahadsanid daawade waxaan daaha ka qaadaynaa saaxiibayaal dagaalka cusub ee ka dhaxloosmay labada raabar ee kala ah Lil Balil iyo GC Boy Lil Balil ayaa ugu horeen gantaal free style ah ama raab bila muusiga ku weeraray GC Boy waxaana uu yiri aniga ayaa maamula fanka oo waxaan ahay kaligii taliye kursiga aniga ku fadhiya fankana sidaan ayaan u maamula disnigas ma fekeraan aqliga kama socdaan maskaxda kama socdaan walwal bay ku soo kacaan kursigan aniga ku fadhiya fankana sidaan baan u gumeystaa disfakas de call me dictator kulligood ma oga sirtayda ashir ba kulligood u dhigaya fanka ba carruurta ka baraya I swear kulligood de gonalaan yaa kale aniga ugu daydaan am yankara ha agar saraf ha hugo hara ha iska daawada ha am your father ha call me baba ha iska daawada geesta kale GC Boy oo maqlay hadalka Lil Balil ayaa soo saaray hees cusub oo uu kaga jawaabayo hadalka Lil Balil waxaana uu soo galiyay YouTube-ka Sata Production isagoona yiri dabkan aniga ma shidane qaacan intee ayuu ka yimid oo la micno ah dagaalka Lil Balil waan fahmi la'ahay inta ayuu u socdaa محاولة ما بشدني اسقارب ويا اسقارب كل كرفنتو دودان لكن توصل دور بابا GC Boy baby بقر تويدا is in the building وركي هورا والسودة فبابا نيغاني وحا كسعودة اسبيد gaarigaaga ma lahan kasaliin amarkayga waa kulin hadda diidana xabsiga ku cabeysaliin dhinaca kale Lil Balil ayaa yiri aniga ayaa raab ka bilaabay waana maqlay inaad ahaan jirtay gaandhari oo uu la jeedo GC Boy ata cunug yar arda casiyoobay raabka ku faanaysan shalay ana bilaabay gurigayga tag qorad wala shaawaydi ablow nacas you better call me Sadie Rich B waxa way ciyaal waa bari maga ku gutuma sidii ciyaal faacali waxaan maqlay ina ahaa jirta gaandhari GC Boy ayaa sidoo kale mar kale heesta uu soo saaray ku sheegay inuu yahay askari ka tirsan ciidamada danab cadawgana qoorta ka jara sida canab xabadana ulisa sida malab oo gantaal karbaasha ku ah Lil Balil nigaani waxaan nahay dana cadawgana korka ka jara sida canab xabadana waxa ulisa sida malab nigama soldier I fight like a ninja she could touch me I told ya geesta kale mar kale ayuu GC Boy qaatay meega waxaana uu yiri East Africa waxa joogtay in ka badan 10 sano anigana waxaan joogay muddo ka yar 2 sano wadarta aniga iyo adiga noo dhaxaysa waa 8 sano waxaana East Africa ka dhistay Big Filo adna waxaad kaga jirtay kiro oo waad ka carartay oo qaxootiga Yurub ayaad haatan miciin biday gobolka waxa joogay in ka badan 10 sano laakiin ani waxaan joogay la 2 sano duramaad niga duramaad xisaabtuna waa in ka badan 8 sano East Africa waxa kaga jirtay kiro laakiin ani waxa ka dhistay Big Filo GC Boy ayaa mar kale yiri shabeelku marka uu ka soo baxo shabaqu ma lahan qabasho kaliya waa cabasho taasi oo la micno ah markaan waxaan ahay banaanka soo dhigo wax ka qabasho ma lahan ee waxaan arkaa oo kaliya cabashada ka imaata dhankaaga oo uu ula jeedo Lil Balil shabeelka madow ka soo baxay shabaqa ma lahan qabasho only waa cabasho ama King Kong ila ka big boy undercover see the James Bond game me song nigga you see the drum kuma sita dhagax kuma siya bagax marka ay aragtana arag ila iyo faga 1 2 3 big boy waa kan ay bale kuwa kala xisaabtooda waxay inta dhiman liiskooda ugu dambeyntii Lil Balil ayaa wajahaya fajac iyo la yaabka kaga imaanaya xagga raabarka GC Boy oo gantaal waaliya ku riday Lil Balil ayaana haatan la yaaban gantaalka alfanaan GC Boy isagoona ilaa iyo haatan soo qaadin hees toos ah oo uu kaga jawaabayo dagaalka uu bilaabay ee kala dhaxeeya GC Boy ayaa ka mid raabariinta dhalinyarada ah ee soo gacan qabtay raabariin badan oo haatan ka dhex muuqda fanka Soomaaliyeed ku mahadsanid daawada muuqaalkan fadlan la wadaag saaxiibadaada oo u sheer gare